iyo qurun iyo reer qansax baynu nahay iyo waanu wada dhalanay haddii cid lagu taageerayo shalay baan ku taageeri lahaa doraad baan ku taageeri lahaa tii ka horreysay baan ku taageeri lahaa aniga kooxdii TPLF iyo kooxdii cabdi ilay ee ummadda lagu gumaaday naf iyo maal wax alla waxa ii dhaaftay ma jirto inta xigtadayda ee raaskayga ah ama intay taqaanaana way ka warhayaan naf iyo maalba waxa la ii geystay way ka warhayaan ay kooxdaas ii geysatay habeen qudhana haddii reer iyo qudhun iyo waxaan dabada iskaga wada dhagantihiin aan kari karayo tiinaasoo kale inaan yeelo waa hore intaan ina cagjar u tago baan odhan lahaa walaalu dhibka igu dhacayna waad ogtahay ehelkaygii iyo waaxyahaygii oo dhan inay dadkan cuneen waad ogtahay aniguna maanta ilaahay baa ii kaa keenay oo fursad baan haystaa wixii iga maqnaayoo dhanna waan ku soo ceshanayaa anna sidii laygu sameeyey oo kale tii laygu sameeyey oo kale aan samaynayaa baan odhan lahaa taana waxaan u keri waayey waxaan ahaa qof weyn waxaan ahaa qof iimaan leh waxaan ahaa qof xubinaho oonalef hoo dhaarsan shuruucdii iyo mabaadi'dii ummaddaan ku dhaqmayey maantana taadeer haddaan gara waayey oon arkay meeshii inaad TPLF loo raray oonalef loo raray haddaan arkay haddaan idhi adeer waan iskaga tanaasulay bal waxa laygu soo caayay ku yar iyo ku weynba laygu soo aflagaadeynaya hadda rag waaweyn oo mas-uuliyiinta ka mid a oona jeclayn hadda inaan halka ka sheego baa haddadani soo wacay oo damcayna aniga ii caga jugleeyaan ummaddani meesha ay ku dambayn doonto ummaddani meesha ay ku dambayn doonto wallaahi wabillaahi watallaahi waa la soo ogaan doonaa ceebteeda ummadda reer ogaadeynayana waxaan u sheegayaa kee isla maanta reer ogaadeynaya isla xorriyad baad gaadhiyow xorriyadii intay cirka kuu jirtay kuu jirtaa sababtuna waxa weeye haddaada dad caadi ahoo xalaal ahoo wax kala garanaya haddaada ka dhalan dad damiirkoodu fadhiyo oo mabaadi'dii iyo shuruucdii oonalef ku socda haddaada ka dhalanin qof qabiil ka dhaartay oo qarannimo u dhaartay haddaada ka dhalanin oo ku dhaqmaynin maantana dadkan meesha jooga ay yihiin dad kursi iyo uun raadinaya sideed wax ku cuntaayood meeshaa ku gaadhaa guud ahaanuun lagu wada xisaabtamayo adeer calaacashaa tima may ka soo bixi inaad xorriyad heshaan adeer calaacashaas inaanad tima ka soo baxayn bay ka dhigan tahay halkaasoo kaley xorriyadiidii jirtaa maanta dad badani waxay leeyihiin laga yaabaa xorriyad baa idii soo socota aniguba in badanna waan ku naaloonayey waan ugu soo halgebay naf iyo maalla waan ku waayey waaxyahaygii iyo dadkaygii oo dhanna way ku maqan yihiin intaana waxaan ka dhursugaya oon rajo ka sugayey keliya ilaahay iyo ummaddaydaas bal inay maskax iyo talo keento shalay iyo daraadna waxaan eedeynayay mustafa cagjarun baan eedeynayey haddana waxaan arkay wax dhaamaaba inuuna meesha jooginba anigii oon mustafa marre taageeraynin in adeertinimo ku taageeraynin reernimo iyo qurunimo aan ku taageeraynin oo ilaahay igu og yahay haddana waxaan arkay guud ahaanteenba inaynu aakhiro guurnahay inaan leef soo gala maana jeclayn rag badan oo hadda halkaa ka arko oo halgama calan sidahaasi ay ka mid yihiin iyo ummad badan baa ila soo hadasho oo tidhi niyow haddii aad baraha bulshada wax soo dhigtay maxamedow bal dib isu celi haddaad xitaa wax aragto haddana sabalgafafka faraha badan ee baraha bulshada intii sawirrada layga soo qaato laygu soo aflagaadeynayo ciyaalka yaryareen shuruucna aqoonin mabaadii oonalefna aan lahayn ee hadda sida qaladka ah indhala'aanta ah ee adeeray gaarsiida indhala'aanta ah ku soo galay qadiyadda een la dhaarinin ee meel la soo mariyey aan jirin kuwa hadda ay soo aflagaadeynayaan u soo galay oon iyo dad badan oo wax moogtiyahoo waxyaalo badan i soo weydiiyey qofowna ha ku xisaabtamin oonalef iyadoo sidaas intay xorriyad kuu keento inaad meel ka soo baxdo qofowna ha filan qofka bilowaadmigii haddii wax garan waayo war maxaad aragtay baa la yidhi waxbaa la soo su'aalaa wax yar baan ilaa maanta soo dhigaa
waxa laygu yidhaahaa adeer reerkii adigaa ugu dambeeyey orodoo reerkii raac baa laygu yidhaah waa dad onelaf sheeganaya waa dad xubno sheeganaya waa dad qaar mas-uuliin sheeganayaan be waxay leeyihin adeer reerkii adigaa ugu dambeeyey orod adiguna raac hangaraar calluguma dhutiye adeer hangaraar calluguguma dhutiye bal meeshaad gaadhaan ku eegi doonaa anigu keligay baan ahay halkaa wiilay hadda qolka ila degan ma odhan karo warri or sidaa doonta yeel anna saan doonaan yeelayahay aqliga bilo-aadmiga ee damiir kale hafayow ma gasho haddaad aniga iga tagto adeer gaalkiisii wataa ku dili gaal doqontiisii ku dila wataa ku gowrici intii aynu maanta aynu soo halgamayno olef soo halgamaysi ummaddii soomaaliyeed ee gobolka inala lahayd ee halgankii iyo qadiyaddii ummadda inagaga hadhay wa kuwaa maanta iyagiina way iska nool yihiin cidda dhimatayna waa innagii uun taa aqliga inaad ku xisaabtantid baa fiican onelef waxyaalo badan oo ka qaldan baa jira war kii tegayow orodoo tag war kii soo gelayow orodoo soo gal bilow aadmiga waa loo aqli celiyaayo waxaa loo sheegaa haddii aad adigu i raaci weydid in adeerkaa baan ahay xaqaagii baan doonayaa ku xaqeenna doonaya oo gaalkiisii iyo kiisii xumaaba wata ay diliyey war berrika maalin haddaan dhinta adna noolaan mayside aqli aan isku raacno oon ku midowno ummaddani ma garanayso bal maanta kuwa leh ina weyraxow haddaad tagto adeer reerkiinniba way tegeen oo orod adiguna raac ee waxaa baraha bulshada iisoo qoraya ee ama isoo dhigaya ama meel walba soo dhigaya eed arkaysa ee maxamed quraxe iyo ugu badan yihiin ayaa la dhuux ugu badan yihiin iyo dhalinyaro badan oo kale oon arkay iyo rag waaweyn oo badan oo xitaa ila soo hadlay waxyaala aan shuruucda oona la fiye mabaadi'deediiba qalad ku wada oo liddi ku ahoo dil ku wada ay igula soo hadleen waxaad mooddaa guud ahaanteenba inaynu meelaynu u soconno aynaan garanayninno inaynu nahayba gebigeennuba hoggaamiye kooxeedyo inaynu nahay gobolkaa dhagax buur baan haystay weli maad aragteen ruux reer dhagax buuraho sannadkao dhan baan xalaal ma ihidin qadiyaddiinni iyo dhiiggiinnii baad ka dhex baxdeen aakhiro guur baad tihiin oo ina mustafa cagjar baad axmaaro ku ilaalinaysaan anigoo dad ugu xigayba wararkaasa qadiyaddaydii iyo mabaadi'daydii baan taageerayaa iskaga soo cararaadayd baan hayee weli maad aragteen qof baraha bulshada iga soo caaya maad aragteen weli maad aragteen weli anoo shaaraca ah laysoo dhigay maad aragteen oo laygu soo aflagaadaynayo ilaahay baad ku dhaariya maad aragteen qofka xalaal ahee xaq sheegay xaqa ka hadlayo maantana meel aanan sawirkayga una oolin iyo qoraalkaygii yaraa meel una oolin ma jirto taasu maxay caddaynaysaa qaabkii menaltireeda weeye adeer ummad badan oo adeer dhiigga shacabka reer ogaadeynaya ummad badan oo dhiigga shacabka reer ogaadeynaya lagu soo kariyey oo maantana islahayd meel baad ku gaadhi dhiigga shacabka reer ogaadeynaya weeyaan kuway soo caadeeya kuwa weeye kuway soo caadeeya anuu adeer mustafa cagjar ma rabo tigree ma rabo axmaaro ma rabo etoobiya oo dhan guud ahaanteed ma rabo go'aanna waxaan ku gaadhay oon horayba 100 jeer ugu dhaartay inta ummaddaydu sidaa tahay inta dalkaygu gumaysta haysto inta waaxyahaygii iyo jidhkaygii oo dhan oo wada kala go'an ay dhulkii yaallaan intii agoontii reer ogaadeen iyo dhaawicii reer ogaadeen iyo uu dhulkii daadsan yahay horay baan ugu dhaartay inaanan dhulkii ogaadeen iyo tegin anoon qadiyadoodii iyo xalaal noqotay oon xorriyad u wadana aanan wadin inaana tegin baan dhaar ilaahay hore ugu maray haddana dhowaan waaban tegay afrikee hargeysaan ka soo laabtay haddadan laftigeeda adeer ina cagjar hadduu 100 sano haysanba maaye hadduu in badan haystana tegi maayo haddaad aniga reernimo iyo qoronnimada kuwa igu caayo waad aaminsantihi waxaas oo waxa idinku jiro ilaahay og yahay oo taaya bannaanka idinka soo saarayo adeer hadba meeshaan maraa lagu ogaan doonaa waxa igu jira lagu ogaan doonaa waxaan u sheegayaa dhalinyaradan waxaan u sheegayaa qadiyadda markaad ruux ku caayaysaan
qadiyadda waxba uguma taraysaan waxun baad ku yeelaysaan ummad badan oo markii horeba maxaa idinka qaldan lahayd baa aflagaadadiina iyo gafafkiina markay arkaan baa qadiyaddii ummaddaba ku nacaysa marka haddaad qadiyadda wax u taraysaan ruuxii aad aragtaan ee wax soo dhiga ama ruuxii yidhaaho waan ka tegey maxaad aragtay dhahoo sifo yaroo caadi ahoo xalaalnima ku jirta wax u weydiiya waxaanse idiin sheegayaa ummadda reer ogaadeeniyow kii oona laf jeclaayee naf iyo maalba ku waayayo kii islahaa hadaf fiican iyo ujeeddo fiican baad gaaraysaayow oona laf inay maanta kaaga dhigan tahay TPLF oo dhammaan dadka reer oonalef maanta la aaminsan yahay inay Tigreed timaado dhulka Mustafa Cagjarna laga qaado haddii la doono lagu dilo Mustafa Cagjar kuwan hadda indhala'aanta dadkan qaladka ku taageerayo Mustafa Cagjar ilmaadeer labaad baanu dhahay aabahii iyo aabahay baa ilmaadeera dad badanna inuu yaqaanaan u malaynaya dad badanna inaynay aqoonin baanu malaynayaa weligay habeen qudheeta kumaana taageerin meesha uu haysto iyo waxyaalaha uu waxna hagaajinayo waxna xumaynayo habeenna kumaana taageerin mar walba cay iyo aflagaado unbay ahayd iyo war wax toosi war saasaanu kuugu garabgeliya sidaa yeel war ummadaada ha kala qaybin waad kala qaybinaysaa habeen maalin qudhoohoon oonalef waxbaa ka qaldan idhi iyo bannaankan ka maray aan idhi ilaahay baan ku dhaartay saaka sidaan u soo dhigay ilaa saacaddan aan idinla hadlayo dadka ay soo garaacaya waa dad hadda fikro xunxun oo xagjirnimo ahoo tigreennimo ahin ku jiro weeye wax badan oo horey u qaldanaana waan arkayey waxaan diidanaa dhaawicii reer ogaadeeniya iyo jajabkii reer ogaadeeniya agoontii baan ka wadaa oo goor walba ila soo hadlayayoo intaad baraha bulshada aad soo gasho ummad badan oo maxluuqaad badan oo kala duwan baa mar walba wax ku soo weydiinaya oo ka odhanaya war hadda halku wax inoo marayaa waxyaalaha qaladaadkeen arko waxaan u diidanaa inaan ka hadlo agoontaas iyo dhaawacaas baa kaa naxaya oo waxaa laga yaabaa kadhadaba inaada debanin oo horeyba ka dhimatee naxdintoodii ummadda reer ogaadeeniya ha ka nixinin waxbaa u soo socdee uun dhaho goor walba waxaa tidhahaa shirka maraykanka ka socday iyo xorriyaddii ogaadeeniyaa lagu dhawaaqayaayoo shidaalkeennaas iyo khayraadkeennaasa laynoogu xeer dhigtayoo dalkii wuu xoroobayaaye khayru niyadda u sheegabaan ama barahayga bulshada kalaha ama ruux walba ugu sheegay adeer ummadaada haddaad goor walba been u sheegto beentu way soo afjarmi waxa xaqa ahee biyo kama dhibcaanka iyo meesha ummadda loo wadana inaad u sheegto mar walba waa muhiim ummadda maanta wax loo wado cidda loo wado ee loo nigiye dimlaynayaa waxa weeye inay tigree meesha timaado tigreena hadday meesha timaado adeer waa la kala bixi uun ruuxii awalba dagaalami jirayna wuu dagaalami kii kalena adeer shaqadiisii uunbuu qabsan jaajuusnimada ahaydee dabadhilifnimada ahayd uunbuu qabsanayaa aaba'anaa jaddanaa wey nin walowba adeer shaqadaadii aad taqaanayeed macruufka ku ahayd unbaad qabsan doontaa marka bal waxaad ii sheegtaan hadda ummaddan dhegaysanayow inkastoo aanu qoraalladiinna xooggiinna fiirinayno qoraallo badan laga yaabo inay dhaafeen bal waxaad ii sheegtaan gobonnimo doon baynu ahayn naf iyo maalba waynu ku weyne halganka qofaan waaxyihiisa ayna maanta kala dhantaalayn ma jirto meel walba dhiiggeennii baa qulqulayoo lafaheennii baa daadsan aqligeenna maanta etoobiya ku kala jeclaysan aynu tigreena aynu ku soo jiidan xabashina aynu ku eryi aynaan guud ahaanteeda aynaan karooska u wada saarayn bal ii sheega halgan baynu ku jirray gobonnimo doon baynu ahayn inaynu ama qalin kaga goonno etoobiya ama qalin kaga goonno ama qori kaga goonno ama qalin kaga goonno bay ahayd xabaddii etoobiya waxba waan ku kala qaadi weyne qalinkii baa soo hadhay
qalinkii haddii la yidhaaha lagu halgamo ta onelef markay soo gashay mabaadii iyo shuruuc iyo nidaam iyo kala dambayn iyo doola bay soo gashay waddanka soo gashay laguna dhaqmayey markii qorigii la dhigay baa shuruucdii onelefna la dhigay sidaan u arko anugu qof walba oo shalay dhiigga dadka soo qalanayay intii onelef baa tahay la yidhi ama la odhanin oo isagu calanka iska qaatay oo isagu shirarka ka soo qayb galay oo ninna aan waxba loo raacanin oo ninna la odhanin waxaasaad ahayd buu ummaddii wada kala geeyey oo nin walbuu isleeyahay kula gobol ma aha aflagaadooyin iyo gafaf iyo waxyaala aan ummadda ka qabanin guud ahaan ku wada dhigay bal hadda aniga kuwan maantay leh ee baraha bulshada meel walba igu soo qoraya adeer reerkii adiga ugu dambeeyey raaci leh aqliga bilowgaadmiga horta ma gashaa yaa naf iyo maalba u waayey dhulkan yaa u soo halgamayo dhowr iyo 30 sano xabadda ridayey onelef adigu mahooyada baa kuu dhashay majeebadaad ku wadataa sharcigii iyo mabaadiidii onelef iyo qawaaniintii haddaan lagu dhaqmaynin bal onelef cidda adiga kuu dhashay ee adiga kuu abuurtay ila shalayba dabaqoodhi baad ahayd ee adiga ku siisee dadka kaa xigsiisayay tahay ilaahay baad ku dhaari ninkii shalay dabaqoodhiga ahaa ee dadka qalanayay baa wuxuu ku leeyahay adeer xangaraar laguma dhutiye onelef annaga difaacinayna iskaga tag buu ku leeyahay shalay maxaad u difaacan weydayood intay tigreedu kugu shaqaysanaysay maxaad u difaaci weydayood onelef u soo raaci weydayood ama u dhimo weyday ama xabadda u geli weyday lagugu arki waayey beerka jecli xaydha jecli ma fiicna hadda waxaan arkayay ayaan axmed aaro leef ku jira baan arkayay oo oon isoo qaba yidhi oo xitaa isoo qaba waayey ayaan axmed aaro horta waa nin naftood horayaashii onelef soo shaqeeyey wey shaqadii uu soo qabtayna ummaddiisii u soo shaqeeyey nin halgamaa ah oo qaali ah oo lagu ammaano weeye balse hadda intii dambe isaga laftigiisa daadkaa qaaday oo waxaan socda ee gobolaysigaa buu raacay oo marra dhinacan u gelayaa marra dhinacan u gelayaa ummaddana ma aha marra inaad alacashaada caddaan dhinacaa tusto marra ad dhinacaa tusto ma aha ummaddaada uma fiicna adiga ahaana kuuma fiicno hadda waxaan arkayey ina sar hayoo ku haystaa baan arkay ummaddeenna guud ahaan waxa rogay waxaa weeye ummadda halkaa ka soo jeedana anigu kaba soo qaada inaan maanta idinka xumaaday kaba soo qaada haddaad weligiin meel gaadhaan weligiin haddaad meel gaadhaan weligiin dad ismaqlo oo midaysan haddaad noqotaan haddaad xorriyad intaad gaadhaan idinkoo caafimaad qaba aad dalkaa wada qabsataan meeshaan idinka taabtay adeer ey baa idinka taabtay sababtuna waxay tahay de adeer meesha dadba ma joogaba wax dadahoo meesha jooga oo jiro oo nool oo gobolkaa ogaadeenaya meel walbaba ha ahaatee dad caadi ahoo xalaal ahoo wax kala garanayo damiirkoodu fadhiyo oo dalka iyo dadka ka naxaya maba jiraba nin walba wuxuu ku xisaabtamayaa sideed kursi ku qabataa waa la isbeelaysanayaa sideed aad isu beelaysataan ilaahay baan ku dhaartay taasaa socota adeer kuwa sidaa aniga isoo lahowna haddii onelef adigu aad lahaydoo intii dambe aan kula socdayna anugu qadiyad iyo mabaadii baan onelef kula socday shaksi kulamaana soconin shaksi iyo qurannimo iyo reernimo haddaan raacayana adeer mustafa cagjar baa dad ilaahay ii xiga maantana onelef waxay soo waddaa intii tigree soo kaxaysato inaa in cagjar lagu dilo unbay rabaan run ahaan ina cagjar anigoon ku ammaanaynin walaalkii baa intii gaadhi laga tuuray layidhi wuu waalaya oo gaadhi lagu soo jiiday aadii dhegaysta walaalkii baa gaadhi lagu jiiday walaalkiisii kala shaarca intii loogu yimid baa toorri la gelgeliyey aabbihii baa ilaa saacaddaa maalmana la uleeyey ilaa saacaddaana la ilaaliyaa ilaahay baad ku dhaariyey bal qofka maanta reer ogaadeenaya intuu madax ka noqon lahaa ee gumaystaha ku dhex jira ee madax ka noqon lahaa
walaalkiina la dili lahaa ee gaadhi lagu jiidi lahaa weliba meydkiisi kii ka yaraana shaaraca lagu tooriyeyn lahaa aabbihiina la budhayn lahaa een waxba dileen bal ii sheega aqligan inuu shaqeeyaa fiican mustafa cagjar baa maalin walba la leeyahay calool xumuu qabaa markay leeyihiin mar walba leeyihiin mustafa cagjar calool xumuu qabaa waxaan u malaynayaa hadalkaasu maadnalaysiduu inay ka wadaan annaga adeer calool xumo kuu qabno walaalkaana gaadhi ku jiidnay kii kalena tooriyeynay adigana hadda kugu soconna goor walba waa inu gubeed iyo laandheerada laangaab baa tahayda ku hayna adeer laandheero waxaa ah ninka qadiyaddiisa iyo mabaadi'diisa intuu aamino dhulkiisa midnimo soomaaliyeed ku difaacda ama laandheeranimada uu sheeganayo gumaystaha iskaga dhiciya kaasa adeer laandheera ah ninka gumaystaha maanta inaga kiciya ee xabad intuu sanki ka geliyo inaga saara ninkaas adeer laandheera ah ninse shalay gabdadkooda kufsada la lahaa oo meydkooda intii lasoo qaqabto ay soo laayaan ku duldhaanteeya la lahaa inay maanta mustafa cagjar ama caloolxumuu qabaa ama waa inu gubeed ama waa kan ay yidhaahaan sheemayuu baan leeh qof iimaan ku jiro oo wax kala garanayo damiirkiisu nool yahay qofaad walaalkaa dishay qofaad walaalkiisii kale aad tooriyeysay qofaad gaf iyo dhibaato oo dhan aad u geysatay maadad tidhaaheen ba haddana calool xumuu qabaa isagoo weliba adoo gobolkii iyo deegaankiiba la jooga taasuna waxay dhalinaysaa mustafa cagjar haddii uu maanta wax iska baddaayaba uu leeyahay maanta xilkii baad haysaaye yaan lagu odhanin tii walaalkii loo geystay buu ku argutay yaan lagu odhaninba hadduu is leeyahay dee taas ummadda gobolkaa joogto oo dhan bay caloolxumo iyo ku beeraysaa iyo halkay ummaddan kale taagan tahay baa lagu ogaanayaa halkay dadkan kale taagan yihiin baa lagu ogaanayaa midhahay dhashaan hadda adeer ciddii iskale unbaa leh onelef markii hore waynu wada qirnay inuu mustafa dhibaata inagu keenay oo halgankii kala furfuray guud ahaan markii hore waynu isla wada qiranay da inaanu wiil yar nidhaahno halgankii intaasoo sannadood soo sicday buuna kala furfuraynaa waxaan innaga ceeb inagu ahaynba ma ahaba ceeb bay innaga inagu tahay adigu maad ciidanka kala furfurtid adu maad ummadoo dhan kala furfurtid aduu mabaadii iyo qadiyad ummadeed adaa u dagaalamayey oo dadkaagu ku jeclaayeenoo maalinkii inay heshiiska soo gallayba la arkayey saqiir iyo kibiir inay ummaddu shaarica ku wada daadanaysay adugu maa dadkaaga kasbatid ood ka shaqaysatid inta lagaa shaqaysanayo haddana waxaan idin leeh anigu waxaan ahaaba haddaan xumaa iyo haddaan fiicnaaba waan idinka tegey anugu maamulkaa xunee gumaystaha u shaqeeyo ma taageersani idinkana waaban idin arkay meeshaad u socotaan iyo tigree waan idin arkay oo idima taageersani shaksigaa maanta bannaanka ka taagan ee idinka dhex baxay baan ahay ummadda qofkii wax garan waaye cayda ka daaya anigii soo caaya waxaad doontaani soo dhaha aan idi arkaya inaad meel walba soo qorayseen intii horeed nala socotayba ina cagjar iyo sir baad nagula socotay inaad soo qoraysaan inaad lahaydeen waan ogahay ood meel walba ii soo dhigteene kaba soo qaada anigu inaan ina cagjar ahaan ina cagjar iyo reernimadan aad idinku aaminsantihiin inaan ina cagjar inaadeertinimoba u taageerayay kaba soo qaada idinku qaabkanaad ku dhaqamaysaan jabhadnimo ma ah qaabkii TPLF weeye ay dadka ku caayi jirtay dadkanna in dadka la caayo oo ruux walba la caayo oo gabadh iyo wiil cidna laga xishoo waayo waa dadkay TPLF soo ababisay soo gardaadisay weeye ummadda Soomaaliyeed ina shakhsi la caayo oo weliba ruux baa soo dhigaya shakhsi u caayo
saqiir iyo kabiir ruux waliba intuu kula soo degaa lagu cadaadcaadaya